riyooyinkan aan ku soo gudbinayo bishan Ramadaan inta lagu guda jiro ay u badan tahay in la arko ayadoo Ramadaan ahayn wala arki karaa waxa laga yaabaa inaad hor u soo aragtay qof ku fasir aad weysaneed ka faa'iideyso haddii aad hor u soo arkidna waxa laga yaabaa inaad dib u arki doontid insha Allah bidnillahi alkareem si aadan macna kale ama qof kale aadan uga baahanin ka faa'iideyso la soco insha Allah bidnillahi alkareem ila ay dhamaadkiisa رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كسو دوادا شيخ ريمي channel waxaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaan dal iyo dibad iyo da kasto aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kasto aad tihiin rag iyo dumar Allah subhanahu wa ta'ala waxaan idin kaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh adduunyo meelsan leh aakhira janno leh inuu nasiib dhamaanteena aamin 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 اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل مرادي ومراد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وقيامنا ودعاءنا وذكرنا ووضوءنا وتلاوتنا آمين يا رب العالمين أحبتي في الله ما أنت وحن إذن سوجيدنا يا هديئات سرون أهاتو أركتو قرآن جدا وقرقا كبوحدو أما بريئات كو أركتو وحيابها أي نقونيسو هدي كبر أي أركي لهيت أما بقروب أي أركي لهيت أما بمطلقة أي أركي لهيت أما بقف عادي إيشاك أدي أو حاصل أما با إيشاك أدي دوب وأركي لها qaabkii ay u noqon lahayd ayaan idin soo gudbinayaa insha Allah bidnillahi alkareem la soco video ila dhamaadkiisa fadlan hadii aad ka hesho like sidii roobka inooga yeel subscribe na dhaha gambeelkana furta si ay idin soo gaaraan waxyaalaha badan aan soo gelinayno insha Allah bati fillah quraanjada hadii aad ku aragto gurigaaga riya ma aha si dhab ah oo run ah hadii gurigaaga aad uga aragto iyadoo oo markaas meel kasta ay ka buuxdo hadday jikada ahaan lahayd haddii qolka ay ahaan lahayd haddii magaranaysa daaradda ay ahaan lahayd haddii aad aragto quraanjada gudguduudan gurigaaga ay ka buuxdo waxaad ogaanaysaa gurigaasi in xaasid daran uu hayo il badani ay ku dhacday dhinaca arsaaqda ha ahaato amaba naagti ayaa wiilal lay dhalaysaa amaba magaranaysa dhalmadeeda ayaa badan ama isku nuug ay dhalaysaa dad waxaa ag degan oo dhalitaanka aan ku badnayn amaba ii sheeg adi xitaa aan dhalaynin oo kale way ku hadleen sidaas daraadeed waxay tusaysaa in quraanjada aadka iyo aadka u badan ee gudguduudan meelaha ku xoomayso in gurigaasi xasad badan uu jiro gurigaasi daaweyn badan ayuu u baahan yahay ama bay cilaaj badan ayuu u baahan yahay in magaranaysaa qof oo caalij ah wax cilaajiya in loogu yeero suuratul baqara iyo magaranaysaa iyo xitaa tajribo la ogaaday ayaa jirto guriga quraanjada ku soo noqnoqota in lagu akhriyo 7 jeer سورة النمل إن لو أخريو أيا إجرتا إن شاء الله بإذن الله الكريم على أي حال وحي أهتبا قرقا عينك ساحة الصومالي دي أول وحي سمين جرتي مركي قرآن جدا ساساس أي ركتو من دي أي لولك كوتاكتا عزبو أي سوق هذا ويكوشو بجرتي يعني وحاسي وحي آمين سنايين واي لكن وحال أوغادي أي دريمايين وحي دريمايين إن وحاسي حسد أما بإل أي تاي وانا حقيق واي سيداس دراد ديدا وحا aad ogaanaysaa gurigaasi in ayu munaasabadin uu hayo hadii gurigaagu uu yahay guri caynkaas ah fadlan sida degdega sugar quraanka loogu akhriyo adiga ku akhri ama qof ugu waco suuratul baqara ha lagu qaadhawo iyo suuratul naml insha Allah bidnillahi alkareem waa uu ka baxay ama way ka baxaysaa quraanjadaasi hadaba taasi run ay ahayd hadaba iyadoo riya ah ayaad u imaanaysaa ahibati fillah riyada dhaxdeeda hadii aad ku aragto gurigaada oo quraanjo ka buuxdo ama jikada ha ahaato kushiinkan ula jeeda jikada ama qolka ha ahaato
amaba ma garanaysaa meel ka mid ah gurigaada ha ahaato laba macno ayay leedahay. mufasiriinta way isku khilaafeen, laakiinse waa la iswaafajin karaa. sida la isu waafajinayo ayaan kuu sheegaya, la soco. mufasirka ibn Sirin waxa uu leeyahay gurigaasi waa guri ma garanaysaa barwaaqo ku soo socoto, arzaaq ku soo socoto, sheeg adiga baraare iyo bashbash uu leeyahay waaye ayuu dhahaa ibn Sirin. mufasiriinta qaarna waxay dhahaan gurigaasi waa guri dadka lagu xanto. haddii jikada ay u badan tahay, jikadaasi inta la galo yani lagu shaax cabo, dadka ayaa hilbahooda lagu jarjaraa amaba lagu feentaa amaba lagu xantaa amaba ma garanaysaa lagu aflagaadeeya, lagu caayaa. marka gurigaaga adiga ayaa ka sheekeynaya. labada mufasiriinba waa sax. gurigaaga haddii guri wanaagsan uu yahay, guri quraanka lagu akhriyo uu yahay, awlaadiisa quraanka ay ku akhriyaan uu yahay, insha Allah waxay ku noqonaysaa haddii quraanjo aad ku riyooto baraaro iyo bashbash iyo barwaaqo iyo arzaaq ayaa ku soo socoto insha Allah bidinillaahi alkariim. haddii laakiin gurigaaga guri dadka lagu xanta uu yahay, guri dunuub badan uu yahay, gurigaasi waa digniin ku soo socoto, waa musiibo, waa imtixaan. waayo guriga dadka laga xantay waa guri imtixaan ku soo socdo, balaaya ku soo socoto. ilaahay hanaga dhinac mariye insha Allah bidinillaahi alkariim. gurigaasi adiga ayaa go'aankiisa iska leh. haddii guri ahlu khair uu lahaa uu yahay, quraanjana lagu arkay, waa sidii insha Allah ibn Sirin bay noqonaysaa oo waxay noqonaysaa baraare iyo bashbash iyo barwaaqo. haddii laakiin uu ahaa guri dadka lagu xanto uu yahay oo dadka lagu aflagaadeeyay uu yahayna, waa guri digniin u soo socoto, imtixaan ilaahay ku ridi rabo ciyaadan billaahi. طيب taas xagga aan uga baxo. waxay dhici kartaa quraanjada inaad ku aragto goobta shaqadaada, ama carwo ha ahaato ama ma garanaysaa sheeg adiga bakhaar ha ahado ama dukaan ha ahado, wax uun xitaa meelaha dadka lagu qurxiyo ha ahaato, meel baad ku arki kartaa. haddii quraanjada meesha aad ku aragto ha baasaysanin, aad bay u wanaagsan tahay. waa faa'iido iyo ribax iyo ma garanaysaa arzaaq oo soo socota ayay ishaaraysaa. aad bay u wanaagsan tahay insha Allah bidinillaahi alkariim. quraanjada haddii lagu arko sariirta dusheeda isla markaasina ay cadcadahay, waxa ay ishaaraysaa in gurigaasi gabar ay ku soo biiri doonto insha Allah bidinillaahi alkariim. haddii quraanjada ay madowdahayna waxa ay ishaaraysaa in gurigaasi oo dakar amaba wiil uu ku soo biiri doono ay cadeynaysaa insha Allah bidinillaahi alkariim. seen ku dhahay waxaan ku dhahay haddii lagu arko goobaha ama meheradaha, haddii lagu arko arzaaq iyo faa'iido iyo ribax wanaagsan ayay sheegaysaa. riba kuma dhihin, waa faa'iido un baan ula jeedaa ribaxga. haddii sariirta lagu arko cadaanna ay tahay, gabdha ayay sheegaysaa ama gabadh. haddii ma garanaysaa madowna ay tahay, wiil ayay sheegaysaa. waan isu garanaa u malaynaya. haddaba waxaa ku timid quraanjada haddii ay ku qaniinayso, haddii aad aragto iyadoo ku qaniintay, haddii aad aragto gabar, haddii adiga aad tahay guur baa kuu soo socdo. haddii garoob aad tahayna sidaas oo kale. haddii wiil uu yahayna uusan guursanin, guur ayaa u soo socdo insha Allah bidinillaahi alkariim. aad bay u wanaagsan tahay. waxa ay dhici kartaa in qof ma garanaysaa dumar ah la qabo ama ma garanaysaa nin naag qabo ay arkaan iyadoo quraanjo ay qaniinayso, isla markaasi insha Allah xitaa haddii ninka naag uu qabo oo quraanjo ay qaniinto uu ku riyoodo naag kale inuu guursado ayay dhici kartaa. adiga alxaasil albaab xirna ayaa u furmaya waaye. albaab xirna ayaa furmaya insha Allah bidinillaahi alkariim. waxaa kaloo ogaata haddii aad ku riyooto quraanjada iyadoo ku qaniintay, haddii aad xanuunsaneedna waad caafimaadaysaa insha Allah bidinillaahi alkariim. ama haddii qof uu ka xanuunsanaa, qofkaasi waa uu caafimaadaya. taas waa taas. haddaba waxaad u imaadaa quraanjada madmadow haddii aad ku riyooto adigoo meel fadhiyo, korkaaga ay ka soo buuxsanto, kugu meeraysanayso haddii aad aragto, waa laga fiican yahay. waxa ay sheegaysaa inaad xanuunsan tahay, weliba xanuunka sakarowga ayay u badan tahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. haddii adigoo kaadshaya kaadidaadana ay ku soo xunto saasoo kale, cudurkaas oo macaanka ama sakarowga ah ayay sheegtaa. ilaahay hanaga koriyeen. waxay dhici kartaa inaad dhiig kar qabto, amaba kolestarool aad qabto, amaba sokor oo macaanka la yiraahdo aad qabto ay u badan tahay. haddii ay kugu soo xoomayso oo adiga oo nool kugu soo xoomayso ayaan sheegayaa.
ama magaranaysaa adigoo kaajay ay kugu soo xoonto ayaan ka hadlayaa. Ima adigoo hurdaya haddii sanka iyo afka iyo meel kastoo daldaloola ay kaaga soo baxaysa aad aragtana riyan ay tahay aad la soo argagaxdo, ma jecli inaan fasiro, qofkana ilaahay ma tuso. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. waxaan helay naf iyo shaydaan bay ka ahaadeen, ilaahay hanaga dhaafo. waxaan hagaajiyey min Allah xaqiisay ka ahaadeen, Allah naga ajar siiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.